maxay cashir badan oo dhigtay Yurub, khaasatan wiilasha hooyadood iyo walaalahood ay soo koolkooliyeen. Soomaaliya markaan joognay, maxaa caawa cambuulo loo kariyey, maxaa canjeero bilaa maraqa ma cunayo iyo arrimo noocaasa, maxaa qolkayga laygu soo firaashi waaye, waay dharkii igu dhaqi weysay, mararka qaar dharkiioo la dhaqay waay maxaa waye kuleetiga wax ku leeyahay iyo sidaas. Laakiin maanta adiga ayaa wax walba samaysanayo, adigoo shaqo ka imaaday daalan ayaa gurigaada kusoo laabanayo, malaha gurigu wuu isdhex yaalaa, adiga iyo nadaafad iyo hagaajin kaa rabaa, cuntadii karis kaa rabtaa, noloshaada adigaa dabarayso. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaadan cuntada sida loo kariyo aqooninbo, bal qiyaas gabadha walaashay waxay tiri 7 jir ayaan ku bartay, aniguna dhowr iyo 20 sano jir ayaan ku bartay cuntada sida loo kariyo, weliba duruuf ayay bartay. weliba Soomaaliya markaan joognay, xataa haddii aad magaalada ka tagtid oo magaalo kale tagtid, cunto ma samaynaysid, adigoo iskaabula meel ku degan maqaayad ayaa iska cunaysaa, wiilkaagana waxay diyaar u yihiin inay qarashaadka kaa bixiyaan. laakiin bal qiyaas markaa qurbaha imaaday, maxaa isbedelay? Abaayo iyo hooyo, abaalkiini wallaahi maanta ayaan yaqiinsanay oo aan hubsanay waxaad noo ahaydeen, marna ma gudi karno, iska keen cafiyo. Sidoo kale xaaskayga mustaqbalkaay, xataa haddii aan anigu cunto kuu samaynin, waxaan noqon doonaa qof og shaqada aad guriga ka haysid iyo hawsha culayska ay leedahay. waan idin salaamay. Isadiyo warkaygana haddii aan waraaqiyo aan ku qoro wargeysyada.